بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. والله سوماليد ملك جوجتان بإله سبحانه وتعالى دكوا ما يالو عدي دبنبك الله كقادو عدي دل الله وفي انت باهن الله ديقو انت بوقتا الله بوكسيو انت دمتي الله ونحريستو والدينتين الله ونحريستا نغير الله نوغا دبا نحريستو dalka diinta dadka iyo dawladnimadaba ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo badbaadi. Waxaan ka hadlayaa saddex qodob. Qodobka koowaad waa ka qaybgalka firdhiya uu ka qaybgalayo shirka Muqdisho iyo madasha wada tashiga qaran uu ka qaybgalayo. Qodobka labaad waxaan ka hadlayaa reer Garowe oo ka hadlay qadiyada ku aadan SSC madax banaaneeda iyo buur madow soo dhaweyntiisii. qodobka saddexaad waxaan ka hadlayaa warqad clip aan arkay ama sawir aan arkay oo ay ku lagaga hadlayo heshiiskii batroolka Soomaaliya iyo Turkiga oo ilaa 9 qodob ah oo aan iyadana kelmada ka sheegi doono. aan ku hormaro NCC da shirkeedii ama National Consultative Committee-ga ama madasha wada tashi ee qaran ayaa waxaa lagu casumay oo ka qayb galaya sida la qorsheynayo haddaan wax kale xumaan firdhiya. arrintaasi waa guul, waa wixii loo halgamay, waa maamul goboleed madax bannaan. waxaan maqlayaa qoorqoor iyo Guudlaawe oo ku dhegan ninka la yiraahdo firdhiya oo diidan inuu ka qayb galo isagoo ah maamul goboleed buuxa. arrintaas hadday run tahay warka la sheegayana uu xaq yahay ama xaqiiq yahay waa ka digaynaa, labada odayba waa uga digaynaa in imaaraadku iyaga soo dhex maro, cid kale ha soo maro, laakiin iyaga in la soo dhex maro oo markaa iyaga col looga dhigo SSC waa uga digaynaa. galmudug iyadaa gobol iyo bara, guri muraayada qof ku jiraan dhagax ma tuuro. qolada la yiraahdo Hirshabeellana Guudlaawe intuusan ka hadlin SSC iyo waxa ay ka noqon karto Soomaaliya gudaheeda iyo dawladda federaalka ah member state-nimadeeda ilaa iyaga u taala cid kale uma taale. dawladuna waa inay facilitate garaysaa, iyada ma khusayso, waa inay u fududaysaa dadkay u taala go'aankaas iska leh doortayna inay noqdaan maamul goboleed. intuu kuwa ku mashquulsan yahay gobolka Hiiraan meel ha saaro oo aan xukunkiisu ka shaqeyn lagana ogolayn uusan tagi karin. marka uu uga digayaa odayaashu inaysan ku ceeboobin, waxaana way soconayaane yaan war idin ka raacin hadday runta hadalka la sheegayo, hadday been tahayna hadda war xumo lagu waa. qodobka intaasan ka oranaya waa guul, waa soo dhaweynaynaa. kolley waxa kan calamadan yaryarka iyo jaamahan yaryarka oo Soomaaliya u qaybsan tahay negative iyo positive ba waa leedahay. positive waa leedahay maamulkana waa lagu barbaranayaa iyo nidaamka iyo raacidda dawladnimada. marka labaadna way kooban tahay oo inta adhow dhowr qof isu yimaadaan bay go'aankii guud oo dawladnimada degdeg u gaari karaan oo way soo dhaweynaysaa oo way soo ururinaysaa. laakiin negative-ka ay leedahay waxaa ka mid ah inay ummaddii qabyaalad u kala qaybisay oo qabaayil loo kala degan yahay dawladana lagu sheegay. marka arrintaasi waa arrin dhaawac ku ah qarannimada iyo midnimada Soomaaliyeed iyo wada jirkii guud dhaawac ku ah. laakiin intaan ku gaarayno insha Allahu tacaala rageediina u kacayo waa iska daawanaynaa, waa iska eeganaynaa, waa iska dhaweysanaynaa. qodobka intaas ka horreeya. qodobka labaad reer Garowe ayaa waxay iska garteen khiyaano loogu talagalay waa shacabka in magacooda iyo sumcaddooda lagu ceebeeyo. waxaan arkayay buur madow baa Garowe ka soo degay. buur madow marka koowaad waa warlord, cid uu u yahay isinna ma jirto, cid isin uu u yahay oo dooratay ma jirto. laf walba oo reerkiisa ahay isin may leedahay. asagu wuxuu yidhi waxaan ahay boqorka bariga Afrika oo dhan. cid u dooratayna ma naqaan, midhaa Zuluugaa doortay. marka labaadna waa qabqabla dagaal oo dagaalkan hadda socda qayb buu ka ahaa. isagu wuxuu ka mid ah ragga isku diriyay
marka saddexaadna waxaan aad uga naxay garaad jaamac garaad cali ninkii wacalka ku sheegay inuu dani soo dhoweeyo waa fahmi waaye laakiin reer garowe waxay iska garteen ninkaa markii la soo dhoweynayay waxaa geesaha ka taagan juxa iyo qaanqaa iyo qarjab iyo koox reer garowe baa geesaha ka taagan oo garowaha lagu soo dhoweeyey madaxweynihii boosaasu joogay boosaasu ka degi karee muxuu halkaa uga soo dejiyey waa khiyaano way iska garteen shacabkii mikrofoonaa lala dhex qaaday SSC baanu taageersannahay ninkaa iyo soo dhoweyntiisana ma rabno raallina kama ahin isuboodkan ay isu booday somalilan iyo puntland isu boodeenna shuqul kuma lihin arrinkaasi waa arrin gobonnimo ah waa igu matashaan arrin gobonnimo ah hadal saxa warka dhabta ah sidaa weeye somalilan ciro haddii uu run siyaasad u garanayo laascaanood isagii laftigiisii odagii uu soo diray baa wuxuu leeyahay waxaan ka jeclaan lahaa garowe inaan joogo inaan laascaanood joogo baan ka jeclaan lahaa waa runtiisa waa meesha wax yaallaan laakiin waxay ceeb ku tahay kuwii soo kaxaystay oo soo dhoweystay oo rabay inuu iyaga ammaano bay dharbaaxa ku tahay halkaasaa wax yaallaan meesha raggu ku xiran yahayna waa meeshaas 400 iyo balaas meeshay ku xiran tahay waa laascaanoodi garowe iyo boosaaso midna maaha danina inuu kursigaa soomaaliya dhiiqa kasta u maro waa uu yani isaga wax ka celinaya ma jiraan dhiiqa kasta oo u gelaya midnimadu kula dirirayaa saaxiibtinimadu kula dirirayaa ehelnimadu kula dirirayaa isagu meesha inuu tago wey hadda ka hor wuxuu yidhi nin baan kursiga ka kicinayay 3 sano iyo barban ka shaqeynaya nin kursiga ka kiciyo waana ku guulaystay inuu ka kiciyey haddana wuxuu wadaa kursigaa waxaan u marayaa xubnaha direed ee dir waqooyi ee muqdisho laga doorto waxaase la yaab leh dani dee inuu intaa fahamsan yahay baaba u qabay kooxdaasi horta kutlay u socdaan waa koox ganacsato ah meesha u jooga mushaharkooda hargeysana lagama maamulo wuxuun waa jiraan gacano ay ku leeyihiin laakiin hargeysana lagama maamulo hadba ninkii magaranaysaa doorashadaas maamulaya baa la soo baxaya iyaguna guruub bay isugu xiran yihiin kutlo iswadato oo hal meel u codaysa maaha waana codkooduna kulligiis waa beec wey for sale wey marka intaa inuu ogyahay u qabay hadduu lacagteeda haysto isagoo hadhow gadan kara kuna khasban inuu gadan doono haddii uu kursiga u tartamayo inuu kula diriro SSC oo naf iyo maalba la geliyey inuu kula diriro ceeb bay ku tahay waana cheap shot waxaa la yidhaha cheap shot waa isku day aad raqiis u ah kelmaddaa intaasaan ka oranaya heshiiskii turkiga waxaan arkay sawirkaas idiin muuqda ayaan arkay oo aan ku arkay twitterka waxaa lagaga hadlayaa 9 shay oo ku saabsanaa heshiiskii turkiga oo 9 kuba negative ah laakiin markaan akhriyey laba xaboo ka mid ah baa run ah ilaa 3 ka midana waa been mid 3 kaloo ka midana waa misleading si toosa looma sheegine waxbaa ka bedelan warkooda midda koowaad waxaa la 90% ayaa waxaa qaadanaya turki waa misleading hadalkaasi cost recovery wixii naga galay oo kharash ahaa up to 90% baan soo ceshanaynaa markay dhammaato kharashkii meesha galayna waxaa meesha yaalla waa la qaybsan doonaa sida loo qaybsan doonana heshiiskaa lagu sheegi doonaa oo aynaan hayn heshiiska ma hayn kan waa framework heshiisyada soo socda kii xadidi lahaa oo xuduudda u samayn lahaa wey which is good thing inay soomaaliya haysato framework la raacin doono heshiisyada dambe oo dhan oo turkiga lala gelayo marka waa waxoo qof waa maalan qof daynku siiyey oo ku yidhi daynkaygi waa kan waxbaad ganacsiga ku gado oo dukaankaaga ku camiro markaad dukaankaaga gadatid lacagta kuu soo baxda oo dhan 90% anaa qaadanaya 10 kuu soo harayna adigu u qaybso kharashaadkaaga kula baxo ku rangarayso dukaankaaga inta aan anigu helayo waxaygii oo dhan
inta waxaygii oo dhan kaa helayo oo kaa soo ceshanayo masaariif ha iiga qaadan lacagte 90% ii soo celi waxaygii ilaa aan dhammaysanayo waa saas oo kale xaq buu u leeyahay qofku inuu saa u doodo qolada la negotiate garaynaysana waxay ku xiran tahay positionka ay taagan yihiin ma position weakness ay taagan tahay oo wax walba inaa ogolaata iska ogoshahay ku khasban tahay mase position strong ya taagan tahay aan adan u baahnayn qofkan la negotiate garaynaysid waxay taagannahay Soomaaliya ay taagan tahay position aad ciriiri u ah oo weak ah tabar daran oo aysan iyadu choices badan iyo ikhtiyaaraad badan lahayn ay ku khasban tahay wixii la hordhigo waxay ka qaadan kartaa inay ka qaadato qodobkaas marka waa misleading qodobka labaad waxa la security reimbursement meesha waxa ku qoran Soomaaliya mas'uul ka ah maadaama ay territory-geedii tahay nabadgelyada shirkadaasi ay ku shaqeynayso iyada mas'uulka kow hadday ku filan tahay marka oo ay iyadu wada qaadan karto iyada wada qaadanaysa kharashkeedana la baxaysa security-geedana iyada ka mas'uula shirkaduna waa inay heshaa meel nabada oo ay ka shaqeyso laakiin waxa la yiri qolo waliba ama shirkaduna waxay gaar xaq ugu leedahay inay iyaduna samaysato supplementary security yar iyo amni iyada u gaara oo ka hooseeya kan guud ee dawladda federaalka ay bixinayso مثلا area oo dhan Soomaalida ciidamadeeda ayaa sugaya amnigeeda gudaha shirkadda iyo shirkadda qalabkeeda iyo inta ay degan tahay ilaalinteeda security bay u qaadan kartaa security-gaas ay qaadatay negotiation baa laga geli karaa oo waxa la oran karaa lacagtoodu intaas kama badnaan karto laakiin lacagtooda waxa bixinaya waxa lagu daraya kharashka meesha galay oo soo kamid ma marka in eed laga dhigo waa misleading qodobka saddexaad bonus lama siin baa liiri Soomaalida iyo signing bonus iyo service bonus iyo waxyaabahaas lama siin waa run hadalkaasi hadal run ah weeye wuxuuna ahaa jilicsanaanta iyo meesha ay taagan tahay baa khasbaysa way ahayd inay ka doodaan oo ka dagaalamaan waxa kale oo jira corruption waa iska jiraayo waa tuunsanahay laakiin arrintaasi waa run qodobka afaraad waxa la yiri lacagta banaanka lagu haynaya oilka lagu gado iyaga gadayo iyagana lacagta haynaya sax ma hadalkaasi waa misleading ama waa false way sababta waxa way intooda ayagu ay leeyihiin iyaga qaadan kara oo gadan kara oo lacagteeda bangiyadooda adduunka ku haysan kara iyo dibadda saasa ku qoran ma aha tii Soomaaliya inay iyagu gadayaan iyaguna ay lacagteedii haynayaan hadday gadaana lacagteeda ma haynayaan wixii iyaga personally ku soo aaday bay haysanayaan akhriska lagu noqdo qodobka shanaad legal changes haduu dhaco isbedel sharci haduu dhaco oo Soomaaliya ay sharcigeeda wax ka bedesho isla markaas isbedelkaas uu saameeyo faa'iidadii ay heli lahayd shirkadaasi heshiiskan iyadoo gashay oo saa ku shaqo gashay haddii heshiiskan inuu shaqeeyo aan sharcigaasi saameyn bay ahayd oo aan retroactive laga dhigin ee la dhaho sharcigan markuu dhamaado wixii ka dambeeya baa sharciyada cusub ku qaban doonaan haddii se la yiraahdo waa la idinku apply gareynaya ilaa Soomaaliya waxaan xaq ugu leenahay dhibaatada dhaqaale ee naga soo gaartay heshiiskaas ama sharcigaas cusub oo soo baxay inay reimbursement noo sameeyaan waa fair way cadaalad way maaha in laga dhigo negative haddii heshiis la galo oo dawlad heshiis la gasho dawladdaas hadday sharcigeeda bedesho inay heshiiskii oo socda ay dhexda kaga dhufato ay tiraahdo wixii hadda ka dambeeya heshiiskaas ma shaqaynayo sax maaha mana aha arrin deganaan iyo xasiloon stability ay ka muuqato stability kama muuqato xaq bay marka u leeyihiin inay dalbadaan reimbursement disputeska iyo doodaha iskhilaafka waxa lagu xalinayaa Turki arrintaasi waa misleading to false waa been ama been u dhow wax been u dhow waxa la qaban doonaa horta waxa wax lagu xukumayaa si waafaqsan maxkamadda adduunka ee ganacsiyada kow waxaa la xukumi doonaa oo la dooran doonaa 3 arbitrar saddexda labada wadan baa kala keensanaya laba qof oo arbitrationka iyaga magacaabanaya hebel iyo hebel baa noo kala qabanaya ka saddexaad ee ah ninka go'aanka iska leh waxaa magacaabaysa maxkamadda adduunka
xeerka sharciyada adduunka international trade law qolada la yiraahdo ayaa iska leh oo magacaabaysa kow maxay oranayaan qofka waxa ku qoran waa inuusan labada qolo midna noqon Turkina ma noqon karo Soomaalina ma noqon karo kow waxaana magacaabaya ninka ugu sareeya maxkamadaas dhaqaalaha adduunka xeerarka adduunka lagu ilaaliyo dhaqaalaha maamusha secretary general kiisa magacaabaya kan ugu sareeya hadduu isagu marka Soomaaliya ama Turki yahay kan ku xiga oo dibitiga ku xigeenkiisa hadduu isagu Soomaaliya ama Turki yahay kan xoghayaha guuda haddii uu Soomaaliya ama noqdo Turki midkoodna ma xukumayo waxa xukumaya markaa the most legal person ama maxkamadda jaajajkeeda haray ninka ugu aqoonta badan uguna seniorsan most senior legal person oo markaa aan labada midna ahayn waa inuu noqdaa haddii midka ugu sareeya xataa uu iyaga yahay kan ku xigo sareynta ku xiga seniornimada ku xiga oo aan labada wadan midna ahayn baa magacaabaya xagee bay ka timi Istanbul iyo Turkiga labada wadan waa sharciga adduunku soo dhaqmo labada wadan ay ishaya midkood baa loo soo dhaweeyaa maxkamadda marka maadaama Soomaaliya aysan international court aysan saldhig ku lahayn meesha ugu dhow ay ku leedahay labada wadanna ay tahay Turki Istanbul baa lagu qabanayaa laakiin sharciga Turkiga shughul kuma leh sharciga Soomaaliyana shughul kuma leh arbitration baa leeyahay dhexdhexaadin waa qolo dhexdhexaadka ah laakiin deegaankoodii maqarrigoodu yahay Istanbul taasna waxa weeye waa false qodobka toddobaad no local company required waxyaabaha u baahan heshiiska soo socda weyn la arki doono ana wali arag in uu ka muuqdo waa sida loo negotiate galay horey baan u sheegay ciladaha meesha yaal waxa weeye corruption baa jira oo dadkan dad lagu kalsoonaan kara maaha dawladda namatalaysa waxa kaloo jirin experts hawlahan bartay oo aan meesha ka muuqan iyo looyaradii ku takhasusay oilka oo aan loo qabsan inay negotiationka inoo galaan waa suurtagal inay jirto arrintaasi marka bad negotiation buu noqon karaa runna waa noqon karaa qodobka 8aad auto renew qodobka 8aad auto renewal inuu isboonaysiiyo si automatic ah 5 sano markay dhamaato haddii aan 6 bilood ka hor labada qolana diidin waa wax sax ah oo lagu heshiiyay in 3 sano oo dheeraad ay helayaan guryaha anagu hadda aan kireysanayno markana la siiyo businessyada 5 sano marka lagu siiyo lease agreement waxaa lagu qoraa waxaad xaq u leedahay another term automatically oo 5 sano ah oo aan waxba laga bedelin qiimaha iyo wixii lagu heshiiyay aan waxba laga bedelin kirada in aad heshid unless labada qofkood ka baxo sidaas ku qoran kana Soomaaliyana way ka bixi kartaa 6 bilood ka hor waa inay ogeysiisaa Turkiguna waa ka bixi karaa oo ilaa meeshan waa ka tageynaa anagu dhasi joogayna 6 bilood kadib labadu way ka bixi karaa marka waa cadaalad sida loo dhigayna waa si misleading ah oo khalad ah oo laga dhigayo wax sax ah laga dhigayaa wax khaldan qodobka 9aad baarlamaanku mari ratify garayn waa been baarlamaankeenu gacanta u taagay isagoo aan arag maxaan ka qaban karnaa dawladdeena haday saas tahay baarlamaankeenu waa baasiyey heshiiska Turkiga gaaska oilka explorationka iyo soo saarista iyo productionka waa baasiyey June July baa la baasiyey kan hadda aan hayno oo framework ana March baa la baasiyey labadaba iyaga baasiyey gacanta u taagay iyagoo arag bay gacanta wada taagay waa masaa'ibta dawladdan iyo baarlamaanka ay xukumaan dadka juhalada ah 3 qof aan midna wax baran ayaa xukuma haddana waaba kuwaas dad kale jiis baatiyeeriyo iyo hoog iyo balada akhriyaya kuwaas xukuma dalka waa nasiib darada ummadda ku dhacday laakiin baarlamaanku waa baasiyey masaxaba baasintaasi waa another case intaasaan oranay billahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi